sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed inaan soo celino oo aynan ahayn rubber stamp dad wixii loo sheego waa yahay yiraahdo. Nicholas Haysom dhiiga shacabka Soomaaliyeed ma u kala qiimo badan yahay. wuxuu Soomaaliya ka howl bilaabay Oktoobar 2018. November 6 waxa ciidamada AMISOM ee hoostaga qaramada midoobay ay toogasho ku dileen dad shacab ah oo marayay wadada Ex-Control ee magaalada Muqdisho. Axmed Basi wuxuu ahaa darawal mooto bajaaj, Cali Shire Ugaas, Xasan Yuusuf Siyaad iyo Qaasim Daahir Qeere. ayagana waxay la socdeen gaari xamuul ah oo ay ku shaqeynayeen. arrintan Nicholas wax dacwo ah uu ka soo saaray ma jirin. warqad su'aalo ku qoranna uma uusan dirin AMISOM. markan Nicholas Haysom waa uu ka xumaaday. waxa uu qoraal u qoray wasaaradda amniga isagoo ku amray inay ka soo jawaabaan dadkii ku dhintay banaanbaxyada Baydhabo ka dhacay iyo sharci ahaanshaha xariga Mukhtaar Robow. wuxuu yahay sharciga salka u ah xariga Mukhtaar Robow ay Baydhabo. maxay tahay amarada la siiyay booliiska federaalka? dawladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay faragelinta Haysom warqad loogu sheegay inaan dalka laga rabin oo maamuuskii loo hayeen laga xayuubiyay. Soomaaliya horay waxa uu soo maray wakiilo qaramada midoobay ka socda oo jaangoon jiray siyaasadda dalka iyo hab maamulka dawladda. waxaana ugu darnaa Agostino Mahiga oo mar Soomaaliya ka ahaa madaxweyne dadban. balse arrinkaas hadda waa uu isbedelay. sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed inaan soo celino oo aynan ahayn rubber stamp dad wixii loo sheego waa yahay yiraahdo. iyagoona ka fiirin maslaxadooda iyo dantooda ka fiirin. annaga maslaxadeena kow noo ah. kadibna waxaan fiirinaynaa waxaan wada qabsan karno oo ah mutual respect, ixtiraam uu ku jiro. laakiin aynan is oran waa burburteen dhulkaa taalaan isi sii dhiiba. annagu Soomaali saas uma samaysanin. dalka Soomaalida ah saas uma samaysna. haddii dad qalad naga fahmeenna khasbiyan waxay fahmayaan sida hadda aan u shaqeyno oo aysan ahayn wax annagu shakhsi ahaan aan jecelnahay iyo waxaas waxay la soo kacno aysan ahayn ay tahay waxa dalkan iyo dadkan dantu ah.